kulanti wacan oo wanaagsan qiyaartayna daawanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka oo adayo kala aad ka daawataan warbaahinta bandhiga iyadoo aynu ku soo qaadanayno maanta arrimaha ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka hadee halahay doorashooyinka dalka iyo sidoo kale fatahaadaha webiga Shabeelle uu ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolada gaar ahaan Hirshabeelle iyo arrimaha kale waxaa barnaamijka martii noogu ah Dr. Cali Cumar Abati oo isagu markaa aynu ku casuulnay maanta iyadoona uu si toos ah uga hadli doono arrimaha ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka ayay marka hore aan ku soo dhaweeyo barnaamijka doctorka marka hore soo dhawo bismillaah wasalaatu wasalaam ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin assalaamu alaykum warahmatullahi ba'd salaam walaalkayga sheekeeye oo ku maadsantahay waana sida shirkada adiga waa casuunti waana ku dhawahay waagaag دكتور ولا سعوتا حالة السياسية الدلكة اللي كان ماشى ومريو سفي عن آتي طبعا هدي أينو إبنو رئيس الوزراء الدلكة أو بشر قينا أيام سيدي دور شر لوجو قبل الدلكة الصومالية مركز ما دام أي أرماء سعي سعودان أو دور شوي مركز سلا فيلا يلا باتل يكون دلكة وكذا ضد بدنا أي كدور سوقيان هذه إفعال أهان محاكم وقنايا بسم الله والصلاة والسلام على الشباب هذا أنقذ القدرة برنامجك أما سؤال شيء ذا أو تيويديسي لنا علم هذا الشريك إفعالا وهذا الموضوع وحيتها متوناكسن أو آت لوجوهم ويا مادام ورئيس وزارها وأرنتي ليسوا هاستي موضوع كجري وكبحيي أو سي نظام ولكن إسبحان لغوه الشيء لغونا الصحيحة حدنا لو بلنسي هاي إن تورشوين كستوس لو آذو أيضا عن وح خلاف كجرين صح تاسنا وحكيني سها تذلك يبسلك السياسة دي إنجير محمد حسين روبرت زارها oo u qabo ama uu ku hanweyn yahay inuu wax ka qabto asagoo la kaashanayo shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir waya marka maadaama ra'iisul wasaaraha dadaalkaasi uu wado sidoo kalena ay jiraan dad badan oo iyagu qaarkood markaasi dhaliilaya doorashooyinka dalka adigana aad markaasi aad ka bixisay ifaalo 2021 aynu ku guda jirno doorashooyinkana gudigiisa haatan ay wadaan sidii markaasi ay u dhicleed qaabka ay u dhicleed maadaama ay dad badan filayaan in qaab wanaagsan ay noqoto adigu sidee markaasi kula wacnaan leedin noqoto aniga waxa ila fiican tahay ma ila wacan tahay in xor iyo xalaal ay doorashada ku dhacdo oo nidaam isfaham ay ku dhacdo asagoon aan wax khilaaf iyo dhibaato kale aan ku imaanin oo la isku raacsan yahay in loo aado doorashooyinka ayaan qabaa sidaan hordhaca idinku sheegaba arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda dalka Soomaaliya iyo arrimo kale ayaan diiradda saari doonaa akhyaarta markaasi si toos ah inooga daawanayso warbaahinta bandhiga haddii geesta kale aynu eegno waxaa xusid mudan in markaasi dhalinyaro aad u fara badan dalka Eritrea la geeyay dalkaas oo la sheegay in markaa lagu soo tababarayo haddaba waxaana sidoo kale xusid mudan in arrimahaasi ay qaar badan oo dadweynaha ku dhaqan Muqdisho ay banaabaxyo kala duwan ka sameeyeen halka kuwa kalena markaasi oo iyagu musharaxiin ah ay shaaciyeen in dhalintu aanan meel lagu sheegin taa markaasi marka loo eego ilaa iminkada tan kama aanay hadlin dowladda federaalka Soomaaliya waxa markaasi su'aal ahaan u hordhigaya doctorka maadaama ilaa iminkada tan dowladda federaalka aysan wax jawaab ka bixin dhalinta lagu soo tababarayo dalka Eritrea welina aan la keenin maxaa ka dhalan kara haddii jawaabtaasi oo markaasi ay dowladda ka bixin waado toddobaadka gudihiisa bismillaah haddaan arinta dhalinyarada loo qaaday dhinaca ciidanka ee Eritrea ku maqan arintaas waxay muuqataa mid la siyaasadeynayo maadaama ilaa hadda wax cad oo lagu haynin dowladda inay ciidankaas oo ka dagaalamay Eritrea maadaama ay hadda wadamada kale ay leeyihiin cadeen baahan ilaa haddana cadeyntii aan la soo hordhigin ama la keenin waxay muuqataa inay tahay been sababta ay tahay dowlad ma jecla in dhalinyaradeeda maanta soo koraysa ay dhibaato horseedo taasna
maadaama uu warkii iyo doodii musharaxiintii madaxweyneyaasha musharaxiinta ay war ka soo saaro dhaheen wax cadale keeno daraad ayaa waxaa ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha in uu dekreeto ugu soo saaray uu ku magacaabay 5 guddi oo soo baarto dhibaatadaas oo hadda la sheegayo hadday run tahay iyo hadday been tahay oo inay ka qayb qaateen dagaalada ka jira dalka Ethiopia si fiican aad iyo aad waayahay marka dhawaan waxaa dhacay banaanbax ay dhigayaan waalidiintaas oo ay ku dalbanayaan in dib loogu soo celiyo carruurtooda marka adigu maxaad qabtaa fikir ahaan in la soo celiyo ma qabtaa ana waxaan qabaa horta haweenkaas ama hooyooyinkaas carruurtooda ka maqan waa hooyo wax dhalay una beer jilicsan in carruurtooda ay arkaan ama ayagoo midkood ay helaan ama ayagoo nool ay arkaan taas aadan ugu xumahay waxaan jeclahay hadday dowladdana maqayleyso in baaritaan dhab laga sameeyo oo dhallinyaradaas si degdeg ah dalka dib loogu soo celiyo haddayba waajibaadkooda qaran ay soo dhammaysteen si degdeg ayaan jeclahay in waddanka lagu soo celiyo gabagabadii barnaamijka dhacdooyinka ayaynu isla soo gaarnay waxaynu markaasi ku soo afjaraynaa ama aanu jecelnahay su'aalahaan in u hordhigno doctoorka arrimaha ku salaysan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay ka dhacayay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobollada ku teedsan oo dhaca Hirshabelle iyadoona ay qayb ka tahay fatahaadihii ku dhuftay halkaa oo dad badani ay markaasi waxyeello u geysatay waxaana xusid mudan in fatahaadaha ay markaasi ay ka soo carareen ra'iisul wasaaraha dalkana uu gaaray halkaasi isagoo shaaciyay in markaa dadka wax loo qaban doono weli xal way markaasi qaylo dhaaminayaan bismillaah waxaan aad iyo aad ugu xumahay dhibaatada ka soo gaartay walaalaheena ku nool Hirshabelle ee dhaca labada webi Jubba iyo Shabeelle gaaraan dhinaca fatahaadaha waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliya gaar ahaan inta waxaysata ama qaas ahaan ganacsatada in si degdeg ah loo gurmado walaalaheena ku dhibaataysan Hirshabelle sababtoo ay tahay cid u maqan ma leh gaar ahaan waxaan kaloo baaq u dirayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha inay si degdeg ah oo shuruud ku jiran ay u gurmadaan walaalahooda dhibaataysan ee ku dhaqan maamul goboleedka Hirshabelle si degdegna loo fuliyo balantii laga qaaday in wax loo qabanayo waxaan kala codsanayaa in si degdeg ah guddi soo baara dhibaatada heerka ay gaarsantahay iyo meelaha ay ka dhibaataysan yihiin si wax loogu qabto insha Allah hadduu maqlaayo ra'iisul wasaaraha injineer Maxamed Xuseen Roble waxaan ka codsanayaa in si degdeg ah aad ugu gurmato walaalaheena ku dhibaataysan Hirshabelle guntiga gabagabadii Dr. Ali Umar Abati maxaad hadalkaaga ku soo afjari lahayd adigoo ka faa'iideysanayo barnaamijkan dhacdooyinka gaar ahaan warbaahinta bandhiga fursadda ay ku siisay waxaan ka faa'iideysanaa barnaamijkan galabta dhacdooyinka waxaan ka codsan lahay dowladda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha in lagu dadaalo dib u heshiisiinta nabadda isdhexgalka iyo in laga gungaaro amniga waxaan kaloo baaqu dirayaa oon ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha injineer Maxamed Xuseen Roble in guddigii doorashooyinka ee gobollada qaar waa la soo dhammaystiray qaarna weli lama dhaweysan maamul goboleedyada waxaan ka codsanayaa inay si degdeg ah ay ku soo gudbeen waxaa kaloo ra'iisul wasaaraha u sheegaa in guddigii doorashooyinka beelaha banaadiriga in aan wax lifaaq loogu soo darin oo 11 xubnood oo beelaha banaadiriga dhalad ah waa in la magacaabaa oon macnaha beel kale magac ay soo sheeganeen taasna wixii imaan doono hadduu ra'iisul wasaaraha uu magacaabo annaga ma dhihino ra'iisul waxna ma ka sheegayno waa walaalkeena waa jecelna waa dowladdeena annaga dad dhexdhexaadaan nahay
dhibaatana uma bareynayno inaan dowladda ka hor nimaano laakiin waxaa xusiisiinaynaa in guddiga doorashooyinka si cadaalad ah loo magacaabo haddii ilaahay yidhaahdona wixii oo khayr ahna asaga ayaan ka soo geynaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhacdooyinka oo hadaha iyo kale aad ka daawataan warbaahinta bandhiga iyadoona maanta uu marti inoogu ahaa doctor cali cumar abati oo isagu ah gudoomiyaha xisbiyada SNU isla markaana si toosa barnaamijka uga qayb qaatay waxaana xusid mudan inaanu ku falaqeynayno arrimaha kala duwan ee Soomaaliya xaaladda dalka iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ka dhacay xuseen sheekaya oo idin leh sida iyo nabadiina kulante wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale doctor waanu kaaga mahadnaqaynaa sida waanay barnaamijka inoogu naqad gashay adaa mudan walaalkay soo dhawow